xaqiiqooyin ku saabsan waddanka Turkiga, dhulkii qaayaha iyo quruxda iyo taariikhda fog ee faca weyn. Waxaa Turkiga loo yaqaanaa si rasmi ah Jamhuuriyadda Turkiga, waxayna xarun u ahayd khilaafadii Cuthmaaniyiinta ilaa sanadkii 1922 ilaa laga soo gaaro markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga, midaasi oo ku aasaasantay gacantii Mustafa Kemal Atatürk kadib markay dhacday khilaafadii Cuthmaaniyiintu. sanadkii 1922 Mohammed السادس ayaa xukunka laga qaaday iyadoona Mustafa Kemal Atatürk uu khilaafada ugu dambeynba ka saaray meesha sanadkii 1924. ninkan ayaa maamulkii meesha ka saaray waxaana lagu naanaysay aabihii Turkida, wuxuuna iclaamiyay Jamhuuriyadda Turkiga isagoona xukunkeeda qabtay sanadkii 1923 ilaa laga gaarayay dhimashadiisii sanadkii 1938. ninkan ayaa waxa uu suuragalay inuu nidaam cilmaaniya waddanka ku maamulo, sidoo kalena wuxuu soo minguuriyey caadaad badan oo laga keenay dhanka galbeedka, midaasi oo gogoldhig u ahayd sidii waddankiisu ugu biiri lahaa qaaradda Yurub. waxyaabaha uu ku kacayna waxaa ka mid ahaa inuu xuruuftii carabiga ahayd u bedelay kuwa laatiin ah. Turkiya ayaa waxay ku jirtaa darajada 37 caalami ahaan marka laga hadlayo dhanka bedka ama masaaxada ee dawladaha caalamka, waxaana saddex dhinac kaga wareegsan bado, waxaana lagu qadaraa dadka degan waddankaasi 76 milyan oo qof. dastuurka Turkiga ayaa waxa uu dhigayaa xorriyadda dhanka diimaha, balse diinta ugu badan ee dadka Turkigu aaminsan yihiin waa diinta Islaamka, iyadoona nisbo u dhaxaysa 97% ilaa 98 ee yihiin dadka Turkigu dad muslimiin ah, waana dad badankood ah dad sunni ah. ciidamada qalabka sida ee waddanka Turkiga ayaa loo qadariyaa ciidamada labaad ee hubeysan ee ugu weyn marka laga hadlayo waqooyiga Atlantikada, waxaana darajada koobaad ku jira ciidanka qalabka sida ee waddanka Mareykanka. ciidanka ayaa ah kuwa aad u awood badan oo dhinacyo badan ka dhameystiran. marka la joogo waddanka Jarmalka, jaaliyadda ugu badan ee halkaas ku dhaqan waa dadka Turkida ah, iyagoona ku dhow 4 milyan oo qof. kuna darso waxaa kaloo jira jaaliyado Turki ah oo ku dhaqan wadamada Ingiriiska, Kanada iyo Australia. Jamhuuriyadda Qubrus ee waqooyiga ma ictiraafsana dawlad ka mid ah dawladaha caalamka ilaa Turkiga mooyee. intii lagu guda jiray dagaalkii koobaad ee dunida, Turkigu waxay qayb ka ahayd dawladihii ugu muhiimsanaa ee jabka ku dhacay, iyadoona loo dhibaato geliyay inay faraha kala baxdo dhammaan dhulalka aan ka mid ahayn waddanka Turkiga. sidoo kalena Turkiga ayaa waxay u muuqatay dawlad dhexdhexaad ah intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida. dawladda Turkiga ayaa waxay ku guuleysatay inay hoos u dhigto nisbada shaqo la'aanta ilaa darajo gaaraysa 9.1%. natiijooyinka ee Turkigu ka dhaxashay kobaca ganacsigeeda iyo yareynta dadka baagamuudada ah ayaa waxay ka yeeshay waddankan inuu noqdo mid ka mid ah wadamada ugu wanaagsan ee Yurub. waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay warshadaha waddanka Turkigu soo saaraan waxaa ka mid ah waxyaabaha dunta ka samaysan, cuntooyin kala duwan, cabitaano, gawaari iyo waxyaabo kale oo la mid ah, iyadoona caalami ahaan waddanka Turkigu darajada 3aad kaga jiro soo saaridda waxyaabaha dunta ka samaysan kadib marka laga yimaado labada dawladood ee kala ah Talyaaniga iyo weliba Jarmalka. khayraadka macdanta la xiriiro ee laga helo dhulalka Turkiga waxaa ka mid ah dhagaxyada qaaliga ah, biraha noocyadooda kala duwan, nuxaasta, fidada iyo macdan kale oo badan. sida Turkiyaba loogu tiriyo mid ka mid ah dawladaha ugu waaweyn ee soo saara macdanta kromka ee caalamka. dawladda Turkiga ayaa darajada 7aad kaga jirta caalamka iyo midda koobaad ee dawladaha Yurub marka laga hadlayo biyaha aadka u badan ee gudaha laga helo ee weliba ah kuwa diiran. haddii biyahaasi ay ka faa'iidaystaan dadkuna, waxaa ziyaadi doona oo badan doona wax soo saarka dhanka beeraha. mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay ganacsiga Turkigu waa dalxiiska oo lacag aad u fara badan ay ka hesho dawladda Turkigu, iyadoona waddanka Turkigu uu galay kaalinta 10aad ee wadamada ugu dalxiiska badan, iyadoona dawladda Turkigu lacag gaaraysa $25 bilyan ay ka heshay dalxiiska sanadkii 2010. tirada garoomada ku yaala waddanka Turkiga ayaa waxay gaareen sanadkii 2007 117 garoon, iyadoona diyaaradaha Turkiga loo qadariyo kuwa kamida kuwa ugu safarka wanaagsan ee dunida.
fiisihii labada waddan ee Suuriya iyo Turkiga ayaa meesha laga saaray sanadkii 2009 iyadoona labada shacab ee labada waddanba uu mid waliba ku gali karo waddanka kale baasaboorka oo kaliya iyadoona dadka aan lagu xujeynin inay qunsuliyadda tagaan iyo arrimo kaleba sidoo kale waxaa meesha laga saaray fiisihii Turkiga iyo Yemen kadib markii madaxweynaha Turkiga Abdullahi Gül uu booqday magaalada Sanca bishii February sanadkii 2011 dadka waxbarta ama iska diiwaan geliya goobaha waxbarashada ee waddanka Turkiga ayaa lagu qadaraa 93% iyadoona ay gaartay nisbada ragga aan wax akhrin karin waxna qori karin 6% halka dumarkana ay gaartay 18% waa marka laga hadlayo dhammaan dadka deegaanka ah ee waddankaasi iyadoo ay jirto in dadka ugu badan ee waddanka Turkiga degan ay yihiin dad muslimiin ah haddana waxaa jiray amar xukuumaddu soo saartay oo lagu mamnuucayay in xijaabka lagu xirto iskuulada jaamacadaha Turkiga iyo waliba meelaha kala duwan ee xukuumaddu ku shaqeyso iyadoona dhaqangelinta qaanuunkaasi ka yimid fikirka cilmaaniga ah ee ku baaqaya in iskuulada iyo jaamacadaha laga dhigo meel ka baxsan fikirka diiniga ah balse mamnuucidaasi qayb ka mid ah ayaa laga rafciyay iskuulada sanadkii 2012 iyadoona si toos ah loo rafciyay ama meesha looga saaray mamnuucidaasi sanadkii 2013 shanta boqol ee jaamacadood ee ugu wanaagsan caalamka 6 jaamacadood ka mid ah waxaa laga doortay waddanka Turkiga dawladda Turkiga ayaa kor u qaaday miisaaniyadda baaritaanada iyo cilmi baarisyada cilmiga ah ilaa heer gaaraya 8 bilyan iyo 500 oo lire sanadkii 2009 iyadoona Turkigu ka mid noqotay dawladaha ugu degdega badan ee dhanka cilmi baarisyada iyo waliba daraasaadka cilmiga ah dawladda Turkiga ayaa waxay leedahay suuqyo weyn oo caalami ah sidoo kale waxaa ku yaala suuqa aadka weyn ee Kablikarsi midkaas oo lagu tiriyo mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee caalamka waxaana la aasaasay sanadkii 1455 kadib furashadii Cuthmaaniyiinta ee Qustantiin waxaana loo qadariyaa inuu yahay mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan oo dadku soo booqdaan isagoona noqday suuqii koobaad ee caalamka sanadkii 2014 marka la eego tirada dadkii soo booqday oo lagu sheegay inay ka badnaayeen 91 milyan oo soo booqdayaal ah waddanka Turkiga ayaa waxa uu leeyahay meelo badan oo taariikhi ah iyadoona ay ku yaalaan wax ka badan 13 meel oo ay dadku soo booqdaan sidoo kalena ah meelo taariikhi ah iyadoona meelo badan oo kamid ah meelahan taariikhiga ah ay kaydisay hay'adda UNESCO Turkigu waa dawladdii ugu horeysay oo la timid ubaxa Toolib Cuthmaaniyiinta ayaa ahaa kuwii sahlay in ubaxa la keeno Yurub qarnigii 16aad iyadoona xilligii Cuthmaaniyiintu ku caanbaxay casrigii ubaxa Toolib luuqadda Turkigu waa mid aad u fudud mana aha luuqad adag siday aaminsan yihiin dad badan sababtoo ah waxay u dhowdahay luuqadda Carabiga iyadoona 70% horaan ay ku jireen erayo badan oo laga soo minguuriyay ama laga keenay luuqadda Carabiga magaalada ugu weyn waddanka Turkiga ee deegaan ahaan waa magaalada Istanbul iyadoona degan yihiin dad u dhaxeeya 14 ilaa 18 milyan oo qof waana magaalada ugu weyn ee waddanka Turkiga oo ay degan yihiin dad ku dhow dadka degan waddanka Belgiumka Istanbul waa magaalada kaliya ee caalamka dhacda laba qaaradood iyadoona dhacday inta u dhaxaysa Aasiya iyo Yurub haddaba magaaladan ayaa noqotay magaalo uu galbeedku kula kulmo bariga sidoo kalena waxaa isku dhehmay oo isku dhaxdarmay dhammaan dhaqamada iyo diimaha Istanbul ayaa waxay caasimad u noqotay 3 imbaraatoriyadood oo waaweyn oona kala ah Roomaaniyiintii Byzantiniyiintii iyo waliba khilaafadii Cuthmaaniyiinta Turkiga ayaa waxaa ka dhacay inqilaabkii ama afgambigii ugu waqtiga gaabnaa isagoona waqtigiisu ku koobnaa oo kaliya 6 saacadood midkaasi oo ahaa inqilaabkii fashilmay ee lagu ridi rabay Rajab Tayyip Erdogan Ankara ayaa waxay ahayd caasimadda waddanka Turkiga ilaa sanadkii 1923 ee ma ahan Istanbul siday dad badan aaminsan yihiin xeebta badda madow ee Turkiga ayaa sii dhirirsan ilaa masaafo gaaraysa 1650 kilomitir waxayna la eg tahay masaafadaasi masaafada u dhaxaysa magaalooyinka Berlin iyo Paris musaaracada Turkiga ee dadka Turkigu u yaqaanaan Yali Gorash ama musaaracadii saliida ayaa waxay soo jirtay 100 sano
waana ciyaar dhaqameed qadiima iyadoona dad aad u fara badan la isugu keeno kadibna labada qof ee ciyaaraysa ayaa dhammaan jirkooda waxaa lagu dharoobayaa ama la marinayaa saliid saytuunka waxayna musaaracada ku dheelayaan meel hawo furan oo bannaan ah welibana qorraxdu tahay mid aad u kulul iyadoona ciyaartan aysan weli ka suulin waddankaasi oo weli laga ciyaaro meelo ka mida waddanka Turkiga. dadka Turkiga ayaa lagu sheegaa inay yihiin dadka ugu badan ee caalamka adeegsada Facebook. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe oo rukumo kanaalka kadibna furo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wax waliba oo halkan soo gelino. mahadsanid.